kadib shir ilaa maalinnimadii salaasadii uga socday magaalada Kismaayo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayay maanta ka soo saareen warmurtiyeed ay xiriirka ugu jireen dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay soo noqoshada xiriirkaasi shuruud ku xidheen. Dabawaryahayaga Maxamed Colaad Xasan oo haatanba stuudiyo ay nagu heliyay ayaa inoo soo jeedinaya warbixin amurtaasi ku saabsan. mahadsanid Cabdixakiin Maxamed Sharwac. warmurtiyeedkan oo gogoldhig looga dhigay laba qodob oo kala ah amniga iyo siyaasadda ayay madaxda maamul goboleedyada sheegeen inuu sababay in xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyadu uu xumaado heerkanna uu soo gaaro. soo noqoshada xiriirkaana waxay ku xireen shuruudo 3 ah. waa kan Cabdulqaadir Aadan Maxamuud la taliyaha golaha maamul goboleedyada ahna la taliyahooda oo akhrinayay warmurtiyeedkan. ay maadaama dowladda federaalka ah iyadu mas'uul ka tahay xiriir xumida labada dhinac, golahu wuxuu isku raacay in sida kaliya ay wada shaqayntaas labada dhinac ku dhexmari karto ay tahay in dowladda federaalku joojiso faragelinta guracan ee dowlad goboleedyada ku hayso, inay garowshiyo ka bixiso xiisad abuurka iyo faragelinta joogtada ah, in la helo hanaan iyo heshiis wada shaqayn oo leh damaanad lagu kalsoonaan karo. inta laga helayo fulinta qodobadaas muhiimka ah, golahu wuxuu hakiyay wada shaqayntii u dhaxaysay dowlad goboleedyada. warmurtiyeedkaasi kadib ayay madaxdii 5 maamul goboleed ee shirka ka qayb galay la siiyey khudbado gunaanada waxaana ku horeeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo dhaleecayn dhinaca mas'uuliyadda ah u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. mas'uuliyadda madaxtinimo way sheeganaysaa, laakiin qaybsi inay mas'uuliyaadkii iyo dhibaatooyinkii iyo duruuftii iyo xaaladihii jiray ka qayb qaadato wax la qaybsato waxay ka doorbiday inay xamar ku ururiso inta maamulka xukuumadda federaalka hay'adaheeda oo wixii soo baxa iyo wixii caalamka imanaya iyo wixii magaca Soomaaliyeed kulligood ay ku koobnaato intaas systemka ay mas'uulka ka yihiin. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay oo hadalkaa ka jeediyey madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in sixidda waxa la isku hayaa ay tahay mas'uuliyad u taala labadaba dowladda iyo dowlad goboleedyada. arrinta koobaad oo qof kasta hortaala waxa waaye bal horta waxa meesha ku yaal maxaa ka saxa maxaa ka runa. haddii waxa meesha ku yaal ay yihiin wax saxa waxa loo baahan yahay dhammaanteen inaan saxno, sababtoo wax naga qaldan waaye. mas'uuliyadaasna xiriirkii unbaa halaysan ma ogiye saxideeda dowladda dhexe kaliya laga marraba, annaga dhanaana laga wada rabaa. laakiin dowladdu maadaama ay tahay hogaankii dalka ayadaa laga rabaa wixii muxuu ahaay saxa oo amniga iyo nolosha iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku ah. warmurtiyeedka waxaa soo saaray madaxda dowlad goboleedyada oo ay ku cabirayaan dareenka iyo culayska haysta deegaanadooda. su-aasha meesha taal waxa waaye xaq ma u leenahay inaan ka hadalno waxaas? haddii annaga iyo dowladdii aan isfahmi weynin keligeen ma nihin. annaga wixii qaladaho aan galno baarlamaankeena qoortana haysta, ayagana dabcan baarlamaankooda xisaabtan ka raba. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo aad mooday si ka duwan madaxdii kale inuu isaga eedda dhibaatada Soomaaliya saarayay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa isna yiri. annaga markii aan aad isu warsanay waxaa noo soo baxday inta ku qoran communique-ga wayna nala saxsantahay, waliba waxaan is leenahay si adaaba oo wax loo sheego ayadoo la leeyahay aan intaasaan isla garanay. runtii sida walaalkay Waaro uu sheegayna aniga haddii hal loo fiiriyo waxaan is leenahay kulligood inay gar yihiin, laakiin bani aadamka hadduu keligii garamo waxa laga yaabaa inay wax kale ka soo baxaan. marka runtii haddii la sheegana federaalku faa'iidadiisa waa la arkay. haddaan ka soo qaadno dalkan dhibaato aan shabaab ahayn u taalo maanta. waxaa sidoo kale kulankaasi ka hadlay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. waxaa meesha ka soo baxay waxa weeye ninkii shiribka ciyaaray oo yiri nin raga calaacal waa ku ceeb inuu cabtaasa caadadii. waagii hore waa calaacali jirnay wasaa subxaana loo yeelay, hadda xoogaa yaro cabashahan ku darnay. annagu wax wanaagsan baan rabnaa, dowladda kama soo horjeedno, dowladdeeda waa rabnaa. dowlad la-aan dhibtayna soo marsay waa ognahay.
inaan wax dumina ma rabno laakiin wuxu hadday sii dumahayaan waxaa waajiba in la isku dayo in la soo qabto annagoo hadda soo qabtaan isleenahay maahee wax dumiya isma lihin in dadku sidaa u fahmaan rabnaa. ugu dambeyntii waxaa hadlay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas. annagoo soo saaray warmurtiyeedkan haddana wuxuu diyaar u yahay sida odayaashu ay ka sharqabiyeen in aanu u dadaallo u sacyino sidii waddanka dhibta looga saari lahaa wixii lagu heshiiyeyna dhanka dowlad goboleedyadu ay u fulin lahaayeen. mushkiladdu waxay tahay runtii haddii mabaadi'da aasaasiga ee lagu heshiiyey oo dastuurku ka mid yahay oo federalismku ka mid yahay sida ay tahay letter and spirit niyad iyo qoraalba loogu wada shaqeeyo waxa hadda aan ka hadlayno iyo dhibtaan ka hadlaynaa ma timaado. marka laga soo tago warmurtiyeedkan ay maamul goboleedyadu xiriirka ugu jareen dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay sida ay hadalka u dhigeen ka quusteen in dowladda dhexe ay meel mariso heshiise ay horay u wada gaareen isla markaana ay fulin weysay xiriirka arrimaha dibadda oo ay ku guuldareysatay. aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo koobayay warbixin ku saabsan warmurtiyeed ka soo baxay shirkii maalmihii ugu dambeeyey ee magaalada Kismaayo ku lahaayeen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. haddaba warmurtiyeedkan ayaa astaan u ah xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah ee Soomaaliya oo hadda maraya meeshii ugu xumeyd ee uu abad gaaro. maxay arrintaani ka dhigan tahay maxaase la gudboon dowladda federaalka ah? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waryaheena maxamed cabdi xasan uu weydiiyey mursal maxamuud sanay agaasime ku-xigeenka machadka heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho. bismillahi raxmaan raxiim sandheer adiga iyo bahda v o a iyo shacabka soomaaliya waa idin salaamaya. horta waxaa ka muuqata warmurtiyeedka ay soo saareen maamul goboleedyada ku shirsanaa Kismaayo dhowrkii casho lasoo dhaafay waxaa ka muuqda kalsooni xumo weyn oo ay muujiyeen dadkii meesha ku kulmay oo ahaa madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan sida ku cad 100 qof kor u dhaafay iyo eedeymo aada u tiro badan oo aan lasoo koobi karin 20 kor u dhaafay iyo quus ay muujiyeen hogaamiyaashii maamul goboleedyada federaalka Soomaaliya uu ku salaysnaa madaxda ka ahaa. marka isku soo duub waxaa ka muuqda meeshaas walwal iyo walaac aada u weyn ayaa ka muuqda oo in qadda siyaasadeed ee dalka ay lugaha la gari rabto oo haddaysan already dhexda ka fadhinin. waxaan kaloo taas ku darayaa October 2017 saas oo kale u shireen 13 qodob oo cabasho ay soo gudbiyeen hadda waa laba laab. marka waxaa muuqata in culayskii jiray oo culays kale kusii darsamay oo walwal iyo walaac wax ay ka muujiyaan dadka Soomaaliyeed ay meesha ka soo baxeen. waan gartay marka walwalkoodu muxuu ku qotomaa ma cabsi ay ka qabaan faragelin dowladda uga timaado dhinaca siyaasadda ah ma dhaqaala ma wada shaqayn la-aan kala maxay culays ka saareen? annaga waxa qarsoon kama hadli karno waxay sheegeen waxa ugu muhiimsan oo ku caddeeyeen warmurtiyeedkooda waxaa waaye in dowladda dhexe madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre dowladda iyo xukuumadda ay madaxa ka yihiin ay shay u qoreen haddii loo dhigo faragelin gurracan ku hayso dowlad goboleedyada. marka arrintaas waa eedeyn aada u weyn waaye kelimada isticmaaleen kelimada ee aada uga fiirsan yihiin rajaynaya waxayna muujinaysaa culayska ay sheeganayaan xajmigu uu la egyahay inuu yahay culays weyn. taas marka waxaa barbar yaalla marka oo rajo muujinaya inay dalbadeen in la dhex galo ayaga iyo dowladda dhexe oo aynan dhihin annaga waa sii jeesanay oo ay rajo ka qabaan weli ayagoo intaasoo dhib sheeganaya in la dhex galo. marka meesha waxaa ka furan door weyna ka furan dadka waxgartay ee Soomaalida ah khaasatan labada guddoomiye labada aqal xisbiyada siyaasadda say sheegeen culamaa u diinka iyo ganacsatada iyo dadka civil society-ga oo arrimaha Soomaaliya ka shaqeeya door ayaa ka furan. asmada rabta waxaa waaye intaas maalmood iskamayna fadhin madaxdan waxay kala yimaadeen 5 gobol isku qabiil ma aha isku koox ma aha isku aragti ma aha waxa isu keenay oo isu soo dhaweeyay isku aragti ka dhigay macnaha culays ka jira dowladda dhexe oo ku fashilantay siyaasadii arrimaha gudaha dalka ayay u dhigeen hadalka. waxaana muuqatay in dowladda ay ka mashquushay haddii la weydiiyo qof kastoo caqli leh madaxweynaha Soomaaliya ilaa China ka dhacay Eritrea Asmara waxaa ka habooneed inuu Kismaayo ka dago dhowr qofna waa ka sheegeen idaacadaha sida saxda ah saas madaxda caalamka waxaa lagu yaqaanaa
markii wadankooda dhibaato ka dhacdo haddii safar ay ku jiraanna inay soo gaabiyaan haddii ay wadanka joogaanna ay ku baxaan marka in lagu baxay ahayd laga hortay intaan waxaan soo bixin hadda wixii waa dhaceen dhibka ay sheeganayaan madaxdaas maamul goboleedyadana waa dhib xalkiisa la gaari karo oo lagu gaari karo haddii la wada hadlo wada hadal ay ogol yihiin doorkaasna waa u furan yahay dadka ahlu xal wal caqdi Soomaaliya arrimaheeda waxaan kale ku dar lahaa marka haddii taas la waayo waxaa kusoo bixi doona dad kale Soomaalida waxay aad uga qaylisaa federaalka Soomaaliya ma dooranin waxa waaye Soomaalida markii isdishay oo isdhibaataysay oo iyada ay inta isdhibtay oo heshiin weysay ayaa inta loo fariistay gacmo dibadda yimaadeen alla Soomaalida saa lagu kala badbaadin karaa federaalka saas ku yimid hadda haddii dadka Soomaaliyeed dowladii intaas hal saha ka soo wareegtay October rasmi laga joogaa waa cabanayeen maamul goboleedyada madaxdooda waxay ka cabanayeen hadii wax laga qaban waayo hadda la soo dhaxgalay dhaheen dadka Soomaaliya dalbadeen inay soo dhaxgalaan oo Soomaali ah haddii taas la waayo marka waxaa dhacaysa in dhakhtar aanan cudurkan aqoonin daawo sax aan ahayn uu qorayaa dhacaysa oo ah beesha caalamka oo laga yaabo in arrintan ay sii murugto marka arrintaas in lagu soo baxay dalbadeen in lagu baxana waa ku talinaynaa oo dadka Soomaalida ku baxaan waan gartay waad sheegtay in dalka gudihiisa ay ka socdaan shirar maamul goboleed ay leeyihiin oo dowladda ay kaga cabanayaan dowladduna ay ahayd inay fiiro gaara u yeelato hase yeeshee waxaa gobolka ka socda isbedello waaweyn oo sida dadka qaarkood ay qabaan ay tahay inaan laga gaabinin marka socdaalkan madaxweynaha dalka Eritrea ku tegey iyo kii ka horreeyey uu ku tegey Shiinaha miyayna ahayn arrin ay tahay in dowladda ayna ka gaabanin maadaama lagu jiro xilli isbedel weyn oo ka socda gobolka horta dowladda laba siyaasad laga rabaa siyaasad gudaha iyo siyaasad dibad mar kasta dowlad kastoo caalamka siyaasad gudaha iyo siyaasad dibad ayaa laga rabaa caalamkana marka dhibaatada Soomaaliya haysta kama taagno oo dal burburay oo wiiqmay ma aha caalam kale waa wadamo yar ayaa dhibka Soomaaliya ka dhacay oo kale ka dhaceen marka dalka siyaasadiisa dibadda mar kasta waxay ay qurux badnaataa oo madaxda dalka dowladda dhexe ama dalkaasi ay siyaasadda dibaddiisa qiimo yeelataa marka siyaasadda gudaha ay haysan tahay oo dad isku duuban iyo dal isku duuban uu madaxweynuhu matalayo ayay timaadaa in lagu ixtiraamo oo lagu istaago marka haddii adiga laga haysto wadankaada farqaha lagu wada haysto mid lugta ku haysto mid madaxa ku haysto mid gacanta ku haysto haddaad dibadda kadoo lagu soo dhaweystaa miisaan ma yeelanaysid marka siyaasadda dibadda waa fiican tahay in laga shaqeeyo laakiin waxaa ka horeeya waa siyaasadda arrimaha gudaha dalka ayadana waa arkaysaa meesha ay marayso marka waa lagu ammaanayaa dowladda inay ka shaqeyso siyaasadda arrimaha dibadda laakiin waa goorma marka lagu ammaanayo waa markii ay siyaasadda arrimaha gudaha dalka xaliso muqdisho siyaasiyiinta ku noolaa ee dowladda dhexe la joogay wixii kala qabsayay iyo dowladda waa ka waqnaa 16 bil la soo dhaafay marka waxaan leenahay waxaa waaye isqaqabsigan hadduu sii daba dheeraado waxaan ugu celinaya in lagu baxa waayo waxaa weeye hadduu sii daba dheeraado waqti ayaa dhumay dowladdan 1 sano iyo 6 bil u dhamaatay waxa uu haray oo keliya oo practicalka ah waa 1 sano iyo 6 bil sanadka ugu dambeeya election ayaa la aadaya marka qodobada ay taxeen wax laga qabto u baahan amnigii doorashadii dastuurkii maxaa la dhahay shuruucda doorashada waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin dad midaysan oo wada shaqeynaya marka haddii kala fogaanshahan iyo hawshan ay joojiyeen maamul goboleedyada ay leeyihiin dowladda wada shaqeyntii waa ka joojina haddii ay soo fogaato howlahaas dib ay u dhacayaan wadanka siyaasadiisa way sii murgaysaa waxaa laga yaabaa xal maanta la heli kara inaan la heli karin dilka in xalka faraha ka baxo marka waxaan ku talinaynaa annaga si howlaha yaala loo dhammaystiro in arrintaasi si degdeg ah xal looga gaaro oo lagu baxo dowladda dhexe maadaama ay ayada tahay aabihii dalka ama hooyada dalka tahay ay kasoo bixi weysa mas-uuliyaddeeda marka dad kale oo ehel ahaa jooga ehel u ah oo arrintan ku bixi kara oo wax ka qaban kara marka waxaan leenahay waxaa waaye cabashooyinka waxa laga qabto waana sheegtaan cabashooyinkooda kaasina waxa uu ahaa mursal maxamuud saney agaasime ku-xigeenka machadka heritage ee magaalada muqdisho waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena maxamed cabdi xasan sandheere